Islaan ayaa shaydaan u timid, markaasay ku tiri, ninkaas harqaanlaha ah intaad u tagto, ma ku qasbi kartaa inuu xaaskiisa furo? Shaydaankii wuxuu yidhi, haa waan samayn karaa, hawshaas way ii fududahay. Shaydaankii wuxuu u tegay ninkii harqaanlaha ahaa, isagoo bilaabay inuu dhinac walba ka soo maro si uu ugu dhiirigeliyo inuu xaaskiisa iska furo. Balse isku dayo dhowr ah kadib, shaydaankii wuu awoodi waayey inuu harqaanlaha waswaasiyo. Shaydaankii ayaa ku soo laabtay islaantii, isagoo soo guuldaraystay. Islaantii ayaa tiri, shaydaanow haddaba aniga ayaa hawshaas qabanayee, i fiirso. Islaantii waxay u tagtay ninkii harqaanlaha ahaa, waxay ku tiri, waxaan rabaa inaad ii tasho dirac qurxoon oo uu wiilkaygu rabo inuu u hadiyeeyo haweeney la qabo oo uu jecel yahay. Harqaanlihii oo yaaban ayuu diracii tolay oo diyaariyey. Islaantii diracii ayay soo qaadatay, waxayna toos u soo abbaartay guriga ninka harqaanlaha ahaa. Haweeneydii ninka harqaanluhu qabay ayaa albaabka ka furtay. Iswaraysi kadib, islaantu waxay dalbatay inay guriga dhexdiisa ku wada sheekaystaan. Haweeneydiina way ka aqbashay. Islaantu intay guriga ku jirtay ayay diricii guriga meel ka mida ku qarisay. Ninkii dawaarlaha ahaa ayaa gurigii yimid habeenkii. Wuxuu arkay diricii saaka uu islaanta u tolay oo gurigiisa yaalla, markaas ayuu waagu ku baryay. Wuxuu iska dhaadhiciyey in haweeneydii la qabay ee diraca loo waday ay xaaskiisa ahayd, halkii ayuuna ku furay. Shaydaankii oo la yaaban islaantu waxay samaysay ayaa wuxuu ku hadla garan waayey. Markaas ayay islaantii ku tiri, sug weli waxbaa kuu dhiman, ka waran haddaan dib u xalliya dhibkii aan geystay oo aan ku qasbo inuu harqaanluhu xaaskiisa dib u soo ceshado. Shaydaankii ayaa yidhi, sidee ku samayn kartaa? Maalinkii labaad markii ay islaantii ku laabatay harqaanlihii, waxay ku tiri, waxaad ii toshaa dirac u eg kii aad shalay ii toshay. Sababtoo ah shalay markaan diraca kaa qaaday ayaan guri kala sii maray si aan salaada ugu tukado, halkii ayaana diricii ku iloobay. Waana ka xishooday inaan ku laabto oo aan diraca weydiiyo, maadaama ay ahayd gabar si fiican ii soo dhoweysay. Isla markiiba dawaarlihii wuxuu ogaaday inuu xaaskiisa qalad ku furay. Gurigii ayuu ku cararay oo xaaskiisii ku maslaxeeyey, dibna u soo ceshtay. Kadib shaydaankii halkii ayuu ku dhacay, isagoo isbitaal loo sii wado ayaa noogu wardambaysa ayuu leeyahay qoraaga sheekadan Mustafa Cawil Xasan. Haddaba saaxiibayaal, aan alla ka magangalno shayaadiinta insiga iyo kuwa jinniga ahba. Inala wadaag aragtidaada, maxaa kaaga baxay sheekadan? Muuqaalkanna waxaa laga yaabaa inuu saaxiibada kala anfaco, ee inoo sheer gareeya.